سلطان إسماعيل سلطان موسى جودة حاجي محمد وقاس سلطان أحمد وقاس هارون odayaasha kale ee halkan joogay iyo dhammaan dumar iyo caruurba dadkeena halkan isugu yimid oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayna waxaan u soo kacay inaan idhaaho ujeeddadaynu halkan isugu nimid waxay runtii waa la wada arkaa waxaynu isugu nimid inaynu ugaaska soo saarno iyo inaynu u duceeyo ugaaska laftiisa because ahlu karamka waxa weeyaan ducadooda way kacday adduunyada haddii aan dib ugu noqono ilaahii sameeyey markii uu sameeyey wuxuu soo dejiyey nin xukuma oo dadkan u soo diro dunida maamula isagu ma gacanta kuma maamulay laakiin dadku keenay dadkaasi waxay ahaayeen prophets ama ambiyadii maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo aadankii ugu soo horreeyay sidaas ayay saldanadu u xidhiidhay kabacdi waxaa lagaga tegaayo ulamrka waa la yidhaha waa garanaysaa loo khulafadii baa ka dambaysay dabeedna mar walba nin saddex qof ilaa la soo gaaro leeyahay saddex markaa tihiin mid baa madaxinii ah oo wayna gartaan oo tiraadaan saddexdeenan maxamed bayna hogaamin doonaa haddii mushkilad haddii hawshu nagu adkaato tii ayay ka socotaa saldanadu waayo suldaan iskama baxo ugaasna iskama baxo samadaa laga dhawaaqa markaa waktiga muxuu ahaa innaga aan joogno maanta oo dee dawlada iyo hay-ada ay la wareegeen maamulkii bini-aadmiga ilaa kii carruurta korintiisii ayaa inaylowsiiyey wixii aynu awal hidde iyo dhaqan ama diiniyanba u lahayd sababtaa diiniyan waxa weeye ummaddu inay cid ay tiraahdo kanaana hogaaminayo deedna ka dambayso marka suldaan ugaas cabdirashiid halkaas ayuu ka soo jeedaa oo uu yahay يعني قف والأمر عمل وكاف أنا هنا نتبي على وحبك فايدين على الجري وأتكلم على شيء يعني وحنا أنت شقيسين سيئين أتسي سعيد كله هنا نتجري وأسك وحن سبع عم بسول وين يا مقعد لندن وهرنا نوجي مدي وعملنا وحكومة هذا قلنا هنا ما أنت عارفنا لا توكتو وهذا أنت يا عساك كسوق بشيء هنا دود عيش صوت هذا وأسك شقارة ما عيدا waxay waan in la karaameeyo waxaan ka filaynaa kaliya waxay waan inuu duceeyo meeshii marka inagu aan u aragnana dad weyn garab joogaan dhammaan wada garab joogi mayno laakiin inuu ba garab joogi inta garab joogta wixii ay marka talada ay isku afkartaan insha Allah waa inaan ku waafaqnayteena kale assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhammaantiin sida ay marka horeba ay raggii iga horreeyay sheegeen waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa anigoo ka mida guddigii hawshan iyagu isku xil saaray in aad ka soo qayb gashaan soo dhoweynta ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi oo maanta halkan inoogu yimid inagu soo karaameeyey inaan maanta halkan ugu imaadno oo aynu tusno walaalnimadeenna u jabsanaantiisa hogaamintiisa inaynu isla garannay inteeda halkan joogtaana aanu dhammaan ku midaysannahay sida ka muuqato fadhiga aynu fadhino inaan diyaar u nahay taladiisa iyo hogaamintiisa inaanu daba soconno marka intaa laga yimaado ugaas inta halkan joogteed arkaysa kuma koobna beelaha aad u tahay ugaaska in ka badan oo 20 laabkeed leeg ayaa dalkan joogta dad ballaaran oo kala filiqsan oo kala aragtiya oo kala wada duwan oo kala midabkooda xataa qaarkood kala wada duwan yahay ayay yihiin waxaa keliya ee la isku waafaqsan yahay iminka wixii hallaabeyba hore inooga hallaabay 100 sannadood iyo waqtiyadii ka dambeeyeyba in bal aynu caano daatayba dabadood la qabaye
aynu hadda yagleelno duruufaha lagu jiro inaan hoggaan aynu ku midaysannahay oo himilada aynu rabno iyo meesha aynu u soconayna gaarsiiyo in aynu samaysanno maantana nasiib tahay inaad maanta horteeda fadhido كل سنة عاوين وهكذا يسوي قد عيو والله بعيد هناك عبدالله وهدور من قالوا لي لا وجدي لكن ما كمل منه بس ضياشك أنا وأنا مهلا قيا مرتلك صوتك بشوار مهلا قيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكرهنا إما ورثي أسكينا أنكرك يلو إنك أودينا إنك أوثوجه وبأسكون معها السبب وحوب بأنية وحا عصيرنا وإنك إنك نقول ما أقول لها وحا ودي بكرناي مركا وحا وأي شقة نقدر سنة بغلق اسمها رمضان وشقة الصف ما بركتي سيو جانكي من السلوح له مركا وحلاهي وقاس عندي قال بهذا يقول وفي درك جيرانه عنك عجل فلانه وحكرا السلام الله سلاجينتا سمران يحط يسكت يدي وجعلها إلى تكسب بتمثل كل يوم بس بلاك سعودي ما تسوي حلاها إلى كسب بتحصل نبيه تومي دكتور شيكان أفريقيا تومي شيكان إنه في مسجد حيان مر والله شيء قلنا نذكر بيه وقتها سياسيين توارك يساوي حلوة بلا سقاط من ربنا نفسيا كل يتمنح من المركز السيوحنا ولا ما ذكر وين صلى إلى الناس فتح كده قلنا قرنا مثلا صدح من بكر رأينا في المر والله وين النبي تومي شيء قلنا وهي صدح من حد يفتح غريبه أفر الله وتوكا خير الله يسير أفر الله ما تفضل منها صدح من منهم أفر الله تفضل منهم ما تغلب الله وحال له المركة صوت وقت دي عجبت الله شيء جيد جعلنا ما تولى السحر الله ما لنا الصلاة فوجشه سجاك يمكن أولاك غير عنها كل واغمات بسم الله الرحمن الرحيم إلى كان دليل تيار فرحة بدله أركيد وناسن وجاسك لبعض أركيد سفود عيسى عندها وقت دعية وحنا الله هاي مدمو هاي طلبة هدم بلاني شكو عيسى بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه خير الله يرسل يصنع وجاسك وفصل هلا لا إله هاي تفريد يعني جري هلا ده وحلا هاي لما كانوا يسكتوا من اللبض فعلا هنشوف هاي الدجسون المشي الرصة كذا وحلا ما اللي قاطع من هاي المزة ما كانوا يسكتوا في الجري أنا كنت بدرس البلوغ ورجع هذا أنت كنت بناوي وياه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد وحن مكة سلام يا وجاسكينا غالبا هو المرتبة الأولى يمكن يدوينها الشرف له المدرسة كسوة الجلي يأتي صوت أبنكار سبا وحنقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمان تحاولي فرحة عنيقا وهرتوغا تركي أو مديسن هذا البلد عن المايو وكي وضع كوي وديرادين dadkii iga waaweynaa iyo salaadiintii iga horreysayba waxa laga wada dhawaajiyo waa midnimo iyo duco midnimadu waa shayga ugu qaalisan ee bini'aadamku u baahan yahay ummaddu hadday midaysan tahay guulo badan ayay gaaraan wax badan ayay qabsadaan haddaba waxaan hadal badan odhan maayo waxaan leeyahay midnimadu way ka wada dheragsan tahay sidii horeba looga dhawaajiyey middaa un baan xoojiyeyda leeyahay allahana idiin wada adkeeyo
beesha gadabuursina allaha mideeyo mid allaha ka dhigo kolay ducada ugaaskii kasta iga dambayso ugaaska xalay baan anagu is aragnay dhawarka iga dhirbaaxay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay ugaaska labaad jawaha waan salaamayaa marka sharafkeena soo galbisay assalaamu calaykum warahmatullahi waxa weeyaan waa in ay jiraan wax aynu dhowraqo intanan madanay ama Djibouti kaamo ama Ethiopia kaamo ama Somaliland kaamo ama Soomaaliya kaamo waa inay jiraan wax in mideeyo inaga waxaas waa maxay waa magaca Gadabuursi la yiraahdo anu meesha daruur shaqo tagi karaa laakiin magaca Gadabuursi kama tagayo meel kasta oo shaqo tago wax kasta oo ka hor imanaya dadkayga iyo meesha ka soo jeedo waa inuu madaxweyne marka magaca Gadabuursi waa inuu ahaada meesha qof walba una dhaaf karin ambareelaha una dhaaf qof walba meesha qof walba yaano aanu dhaaf karo waa inuu ahaada والله ولا يناسب ودنتين كودا جيتو صوتو أنا حقيقي وحن هليا مركز Gadabuursi وحنا نحليا كليجي وحنا هليا دنتين وحن كوجي بتاع دنتو سمرون يجي Gadabuursi أيه كوجي بتاع هذا كبحلو نهليا خاص وحوين واتربوس قفلوس Gadabuursi وين وجادا دنتي سيرة كوجي تو دنتو Gadabuursi وين ولايا وين هالكعكبتي أما سياسة كوجي أما أغنيها نهاو أما واحد دنتا هاو dantaadu waxay ku jirtaa marka Gadabuursi xalaa ma xirtay waxa wax ku tahay magaca Gadabuursi waxa ku tahay kaliya cidna soo dooran mayso cidna kala mayso halkii uu ka dhawaajiyay Cabdiraxmaan Dheere ee ahaa kabaal nagi ayaan doonayaa talka intii aan garanaynin caawa baro hore wuxuu uga yidhi kabaal nagi dhulka leedahay waana dhulkaan doonayna in ugaas Cabdirashiid la dajiyo oo looga dhiso qasri haddii halkaa la dajiyo ugaaska kabaal nagi ugaaska haddii la dajiyo xaaladiisu way dhagaysaa cid sheeganaysa cid qaadanaysaa midna ma jirto waa in kabaal nagi tolow samaroon oo intaas kacdaan ugaaska looga dhisaa gurigii looga talinayay samaroonka markaasaan wax qabsan karaa oo aan dalkeen wuxuu qaban karaa dekada dhisan karaa dhulkeenna maanta maranku galay ee macdanta ku aasan tahay ee la doonaya in la qaato haddii la hordhigo ugaas Cabdirashiid way dhammaatay sheekada iyo waxbaa la qaadanaya kabaal nagi baan haddaba idiin bilaabayaa ugaas Nuur ayaa tiriyey igana raalli ahaada haddii ay erayada qaarkood dadka dhibaan waxba ugalama jeeda xiisa dagaalama kicinayno laakiin waa hadal hore u baxay kabaalka nagi kobtii laygu dhalay kaydkaynankayga kumbuskiyo kublaawo labaadow haddaad kow ka leedahaye keligii la baanay kumciin uunka kala geeyey ee weligiiba ninkii nagu kamee kibidna noo keeno kabadhiiga waan siin jiriyo kalax dhunkaaleede door wuxuu kibir lahaa keenidaan geliyey kabla laxdaarood halkuu kabala'aan yaacay kutaniyo axmaariya wuxuu faras lahaa dixdaan isugu keenay dixdii laygula kulmee layga kal waayey waar malaha dee reerkan wuu soo kabay waa ka taabaniyey mar labaad waxaan idinka codsanayaa samaroonka hala soo celiyo Cabdirashiid waa inankaa dhallinyarada ah keligiina wax ma qaban karo wuxuu u baahan yahay garab iyo gaashaan buu u baahan yahay Gadabuursi boqordoodilaa saadahayn jiraye mid aan gunahayn diinna ku gafaynin ubax baa laguu dhigi jiray ugaas geedkii harawaade keligii wuxuu gooyo uun laguma guurayne guddi boqola gacan budkiyo odaya gaashaama tala madaxi goysaa dhammaan loo gorfayn jiraye galdafaani goortuu ka baxay garma laalayn waxaa laydinka doonayaa guddigii boqolka ahayd oo samaroon u dhanyahay inay ugaaska garab la joogtaan oo yihiin iyo hooba la garab joogtaan dowladdii samaroonkuna oo way bilaabantay ugaas Cabdirashiid noolaa isaana dhawo walaal isugu nimanay ee xitaa suldaani noo cuseenay noogu jiro inuu ilaahay noo aqbalo annagu haddaanu nahay reer Galmudugna aad iyo aad waxaan maxaan ku rahadaay aan ugu mahadnaqaynaa halkan maan soo istaageen haddii la habeeyo agtayda soconin waxaa na mireeyey oo samaroon naga dhigay
وحويان وسمسم مركا يكنا وحن إلهي عبد الله قرب كولا وحن وضعنا قريب وحن استعلمنا القرب كولا إني كنا وحن اللي قرب جينا يا تمرون مديسم فرحب قصي وحويان دفت مركا مليوبان عاوة وحن عرفين وقال بدل أولي اسم مرة بكوال كتير مركا كم كان صحبة يمسون على عاوة إلى الأولو لا والله درين كويس مركا شعورتي لك حلو مركا إن شاء الله دعاء وقال سيما إسألة جينا إلهي إنت بقى إنه محافظة إنه أقبله هذه الدولة منها السنتين وانا سلامة يا قبلها محافظة هذا ما شاء الله عشرة ونفسن إيو ما منتصيعا إنت بالنوصو قبل قابيل إيو القرق وحنا بلولك هذا اللي يكون هنا سنتين غير لبن اللي كان يسكت بمعني إيو وحن يقرر جينا إن شاء الله كالقعر ولا تنمو مركز سينا تكون الشقيسين حتى تريد لنبنتهم أنا كان قبل الله قرب بعد مجرد يصير إن شاء الله مركز إن شاء الله إلهي هاي نمذيه واسمينا يسرى دينتا هريرة فدنا يجينا ولا شقينا عقل العقول نيتي نمكو بالجارنا كانوا هنا سلا عاوة فدنا سكا قروح بلن للو بين شغل نادمو جعلتنا أن قبلنا يلاسكينا تروحي أن جينكرني عقولي كرتي وحن كنت غير كرنينا وكنت غير ما يقصوا في جبلاتي أنا أقول منه قروحنا يشربتا ينظامتا هالكذا حلا ويرين ما تيجمعلي إنه يقولوا تيرك وتشعري يجعلتي يندي أرجع عدلي عقولتي إنا كتيب له مركا أنت سامي تقدر داريا أبان ما تنفي سنة في العمل رسول الويسين فرين كانوا ينقرشين دون كريا سنة في العمل غير جريسين الويسين بس ويجرون والمجد دون داريا بس ومبيننا شيء من وغلانا سراتين هاي اللي أنا كل يوم مبيننا ومشوا فيه كل بلين واردين إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله أو بروفيسور نجاي كميدي هاي فرحان حدك ما كميدا علمي أو ضياشي محاول كل حمر جوجي كميدا وسعة ولا نكى dadku marka ay bislaadaan weey waxa lagu kala gedisan yahay ra'yiga way dhici kartaa hawl baa inaga luntay hawshii luntay baynu raacin ku jirnaa marka ayaan la isku leeyahay nin walba meeshu oo ilaa madax halkan ay gasho halkan ay martay waa la socon karaa nin ku socon karaa ay iyaga والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سوق المقابسين كان انتصار على شيء انتخاب جلسين في المرء جلسين رمى الربي جنافة آبي بدنا سنتين صلاة وضيدا لما في والكرامية سدان كان عصب وحبا صعنا نسعي سدان اسماعيلنا آبي بنوجد عيننا إنه إلهي حلقة ولديريه ولا ليال هلندن مركي كواد معها مرقدنا وهو ونيه مدي سيدنا يسيك في عم وديس ودويسين مانتو وجوه سك بود أدو مغتمادين إذن فقال في عن ونيت في عن من لماذا أن لكن يكسر الليل إذن فقال أركيا إنه قرب الجوغة وخنين لأولن لها ولا ليال مسكرياتا بعد مقنسان si aan dadkeennii dhulkii oo dhibaatadu ay ku absatay aan ugu badbaadin lahay xafladaha waxaan la odhan lahaa la yareeyo tacabku ha noqdo si dadkeenna loo caawin lahaa maaliyad dekedeennii baa maanta dhaqaale dadku isku wada dhaafay dhaqaale soomaaliya wadigii ha arkay in qolo waliba ay meesheedii joogtay ay wax ka dhisatay innaga dekedeennii waa kaas wayna sugayaan dadka ay sugayaanna waa dadkeenna qurbaha jooga inaynu tabarucaad aan geysano wixii kale dowladda kale ama dowladaha kale aan soo qaadan karno waan aniga iyo qurbijoogga ila raacayaaba waan dadaal habeen iyo maalin labadaas sano ugu dambeysay ma fadhiisan sidan dadkeenu waxa uu qabanay injineer aan soo kaxeeyay injineer maxamed iqbaal oo kanadiyaana oo dhulkeenii geeyey si uu meel wax uga qabto marka iyaduna hawshaasna way socotaa waxna la siiyey ilaa 10 kilomitir oo square oo dhula inuu wax ka beero oo halkaa geliyo mashruuciisa halkaa uu ka beero haddii ilaahay ilaa
marka lahaanshihii ownershipkii ay dadkeenu ay samaysan lahayn taasaa markaa waqti naga qaaday insha allah waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaa in hadda waqtigan dambe ay taana soo dhammaato dekedeenna ugu muhiimsan inaad dadkeena qurbajoog oo dhan inay dekedeenna ay wax ka qabtaan waad aragteen ra-iis hodheen inay cagtii weyna soo iibiyeen oo maalgeliyeen taasna horumar waxa ka dhiman in iskarogooyinkii la helo dabadeedna hawshii la bilaabo markaa North America oo kale dadku waxay leeyihiin lacag badan baan soo dirnaa waxba weli kama bilaabno meeshii dadkeena idinka halkaa u jooga idinka dibadda jooga inaad hawshaas inta qabiil iyo waxaad ku maraysanaysaan inaad midnimada horta koowa midnimadii way noo bilaabantay way noo socotaa marka midnimadii mar haddaan haysanno inaan taa xoog saarno baa loo baahan yahay waqtigii aan tagnay waxyaabo badan oo kale waan qaban karin mana qaban karin because midnimada dadkeena ayaa dib la geliyey markaanu boon oo kale maraynay rasaas baana ugu furay waxay ahayd nimadii isagoo mid dhulka rasaastii lagu soo ridayo ayaana dhulka u kala ka qabtay isagoo qorigii u dhigi waayey ilaahay amarka markaa waa walaalkaa oo maskaxda laga bedelay laakiin u dulqaado oo iska daaban ku dhig markaasuu yidhi adeegu ku dilaya maxaad ugu soo gaadhay marka dadkeenu marayna isdilayna anugu waan aaminsanahay caleemo qoyan meel walba waan tegno caleemo qoyan baan laga horreydayay dadkeenu inagoo siyaasadnin waliba wuxuu aaminayaa iska aamino laakiin wixii dhaqankunbaa loo soo noqonaya dadkeenu dad nabadgelyo aynu ahayn dad ixtiraamaynu lahayn dhaqan fiican baa inta abayaasheen iyo awowayaasheen aan ka soo dhaxalnay oo intayna soo badbaadiyey dhulka ugu qiimo badan Soomaaliya marka la eegana waa dhulkeena deganay dadkeenu degan yihiin innaga laynoo soo qaxootiin doonaa markaan hawshan iminkaan wadno haddii ilaahayna nagu joogay innaga qaxooti laynoo soo iman doonaa mustaqbalka soo socda waxaan in hawsheena bilaabantay aan ka wada qayb galno cilmi saddex qaybood isku qaybino qayb dhulkii joogtaa iyagu waa naftoodii horayaan wax kaloo haystaan ma jirto dadka dibaddana inay dhaqaalihii keenaan kuwa mutacalimiinta oo caqliga leh inay iyaguna cilmigooda ayna la baqaynin oo dadkaynu ku caawiyaan saddexda qaybood uma qaybsan gurbajoogii meesha uu saddexda qaybood ka gelayo isagu ha isweydiiyo markaa walaalayaal aan dadkaynu sii badinayn waxaan leeyahay hawshu way socotaa dadaal badan waan samaynay xiriir badan waan wadnaa ilaahay idankiina waxaan rajaynaynaa oo isku taagnay labada sano inuu dadkeena wax u qabano marka idinkuna nala garab gala yallangan number one baatiin ilaahay idankiina mar kastoo nimadno qalbigayga waa aad baan jecelahay waana mahadsantihiin midnimadiinana midnimadiina xajiiskan ilaahay haynameeyo dhallinyaradeenna allah barakeeyo dumarka allah inoo barakeeyo waa xoog weyn oo maanta inoo kacay waa dumarka dumarkuna aad iyo aad bay mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyo caafimaadna allah inoo wada siiyo inagoo iswada jecel rag iyo dumarba ilaahay baraka allah ina siiyo caafimaadna allah inoo wada siiyo guulaysta insha allah midnimadana xoojiya ilaahayna hayna gargaaro annagana noo soo duceeya inuu ilaahay hawshaan noo dhibiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته